guddida ka hortagaya la dagaalanka xanuunka coronavirus ee heer qaran oo shir jirayd ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in 20 qof oo looga shakiyay xanuunka coronavirus baaritaankoodii dibadda loo diray isla markaana marka la soo celiyay ay wasaaradda caafimaadku ay shaacid doonto waana kan wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland oo arrimahaasi sharaxaya xanuunkani Soomaaliland uu ku jira kuwa roobasati Faransiiska wasaaraddu sheegtay waa la helay haddana ugu yaraan 20 qof ayaa maqan risalkoodii oo aanu filaynaa in la keeno waxa cadayn doona marka ay soo gaadho wasaaradda caafimaadka iyo dhaqaatiirteeda ayaa cadayn doona laakiin waxaanu sheegi karaa inay maqan yihiin arintaas geesta kalena guddidu waxay xadhiga ka jartay xafiis cusub oo qaban doona hawlaha shaqo maalmeedka si loola tacaalo xanuunka coronavirus waxaana shirkaasi jarayd ka hadlay wasiirro kala duwan bulshadana ka wacyigeliyay xanuunka coronavirus waxa dawladdu go'aansatay in la furo xafiis ka shaqeynaya oo uu hogaaminayo xogayaha guud oo noqonaya xafiiska shaqo maalmeedka kahortaga cudurka coronavirus qabta madaxweynaha ku-xigeenka iyo golaha wasiiraduna ay u noqon doonaan mustambeed ama ay hagi doonaan halala shaqeeyo dawladda guddigan heer qaran dhaqaatiirta wasaaradda caafimaadka dawladaha hoose halala shaqeeyo dawladihii hoose iyo gobollada dhibaatada haysataa waxa weeye meel allaale iyo meel ay dadku ku kala tegayaan inaanay jirin wararka dambe imika na soo gaadhaya waxaa ka mid ah reer magaalkii markii la yidhi mafarshada hal ku qayilina waxay u baxaan magaalada koonayaasheeda geed bay konton ku wada fadhiistaan war markaa waxa weeye bini'aadminimadii miyaynu ka baxsannay shareecadii islaamka elementariga ahaa ilaa iyo jaamacadihii umaynaan fasixin inay inta koox isu haystaan tamashleeyaan suuqa halkay doonaan maraan ciyaaraan oo isku urursadaan qaarkood soo celiyaan inay kooxaysi ka dhex bilaabaan magaalada iyo islaayaan waxaynu fasaxnay in ay guryahooda joogaan wixii cashar la siinay ee loo soo marinayo social media ee macallimiintooda u soo marayaan halka ka qaataan xamse geelle on cable TV Hargeysa shirkadda dahabshiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaarinaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya abka Talk Remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diro ku heli kartaa adeegga e-dahab